kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Gabil iyo caasimadda gobolka oo ka kooban haweenka, dhalinyarada, salaadiinta, waxgaradka iyo madax dhaqameedka gobolka Gabil ayaa taageero xooggan u muujiyay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaamiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Sidoo kale waxay ku gacan saydeen annadii hore uga soo baxay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay ku sheegeen inayna aqoonsanayn dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ay sheegeen in muddo kordhinta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay tahay mid sharci ah sidii hore loo kordhiyay madaxweynaha hore soo maray Soomaaliland. Waxaana sidoo kale musharaxa xisbiga wadani cirrana xasuusiyeen in muddo kordhin uu ku fadhiyay muddo 12 sano golaha wakiilada ee Soomaaliland. Tamaanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi loo kordhiyay ay tahay mid la mid ah kursiga ku fadhiyay qaybaha kala duwan ee bulshada hadaladoodii kamid ahaa. horta anagu dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha haybadda leh ee xilkiisa intuu hayay intii hore inay qaban qabtay ee Muuse Biixi Cabdi ayaanu taageersanahay waana jirtaa cadawgeeguna ha jabo. madaxweyne la doorto waxa bedeli kara madaxweyne la doorto taasuunbaa sharciga qarankan u yeelay ummad kasta haddii ay gabto taa waxa ka iman doona cid walba way garanaysaa. maanta waxaynu inagu aqoonsanahay dhammaan inay jiraan 12 urur siyaasadeed xilligoogina bislaaday. halkan waxaan fariin uga dirayaa komishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay waa inaad mudaysaan maalinta ay dhacayso doorashada urur siyaasadeedda Jamhuuriyadda Soomaaliland. meelahaas oo laga faanaa way iska dhamaan doontaa hanjabaad meel ka dhacda way iska dhamaan doontaa waxa la shubaya qarannimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay nahay dad nabadgelyo jecel qarannimo jecel aqoon loogu yimaado qabyaaladii ka xaraan tahay haddaan nahay dhammaanba waxaan ku cadaynaynaa Muuse Biixi ilaa inta doorasho lagaga qaadayo inuu madaxweynaha Soomaaliland yahay oo haynu isku raacno ilaahay hayna tuso. waxaanu leenahay Soomaaliland way jirtaa dawladuna way jirtaa dawladana waxa bedeli kara oo dawladda la soo doortay oo cod lagu keenay laakiin laba nin oo meel ka hadlay ma bedeli karaan. niga kursiga u maroro dilacsan waxaan leenahay adeer waddanka naga khalkhalin oo adigu liibaan iska tag adigu adaa fudude iska tag baan ku leenahay. iyada mucaaradka ay yiri ma jiro madaxweyne la soo doortay oo cod ku yimid aaminsanahay haddaan nahay shacbiga reer Gabiley ama Soomaaliland in madaxweyne la doortuuni bedeli karo sida dastuurkeena ku taala waxaan leenahay waad iska hadasheen waxaanad maxaa dhahday ay ku socotiin qaranka Soomaaliland eenu 30 sano soo jiray eenu nabadda ku aasaasnay. ururadan mucaaradka ee yiri dawladda ma jirto dawladda Soomaaliland qaranka loo soo dagaalamay ee la garanayo sabixi madaxweyne maaha iyo ma wax soo ay maaha kursiga inaga dhignay ummadda Soomaaliland baa dhigtay xoog uma iman maalinta doorasho ay timaado haddii la yiraahdo uu xaq u leeyahay haddii laga helo inuu kursiga ka dhaadhaco. Muuse cod buu ku yimiday codkii uu shalay toole irra ku fadhiyay ee uu baarlamaanka inagu xukumayay ayuu ku yimiday oo kale waa loo kordhiyay eday ninka lagu dhaaciro isagoo baarlamaanka fadhiya tii inuu muuqato. xisbiyadu horta waxay wataan qori maran rasaasta xisbiyadu waa shacabka xisbiyada waxaan leenahay rasaasta haddii aad shacabka ka tagtiin rasaastii baad ka tagteen. waxaan leeyahay qofka isbedel rabow waxa aad shacabka gashataa. Soomaalidu waxay tiraahdaa candho xoolaad nin walba wuxuu gashadu ka maalaa xumaan waxba lagu heli maayo baan leeyahay. sida aad leedihiin ma aqoonsanina Soomaaliland baa Muuse Biixi meesha dhigatay iyadu baana ka qaadi karta cid kale oo ay dooratay ay u garato ayuunbaa bedeli kara. madaxweyne la doortayna wuxuu ku tagi karaa madaxweyne la doortay. waxaanu leenahay iskaga dheehantay qarannimada iyo qabiilku ayaan leenahay sidaa ma aha qarannimada reer Gabiley waxay garan karaan cidda qaranka u dana ee ummadda isku wadi karta ayay si sahamisaa. dawlad baa bedesha madaxweyne baa bedela maayar baa bedela gola guurti baa bedela gola degaan baa bedela gola baarlamaan baa bedela waa sharcigeena ninka haddaba yidhi madaxweyne ma jiro
ayaa u madaxweynaha maanta reer Soomaaliland yaaban yiraahdaan waa reer Gabiley maxaa soo celceliyay reer Gabiley way tooseen qarankay leeyihiin siday qaranka ugu tooseen ay halganka ugu kaceen ay wanka u haadeen maantana waxay diyaar u yihiin oo u kaceen inay qarannimada ilaaliyaan Soomaaliland bay ilaalinayaan adeer Muuse Biixi ma ilaalinayna waxa ilaalinayna qaranka Soomaaliland waxaan u dhimanay qaranka Soomaaliland waxaan filayaa nimanka hadlaya waxba ma jiraan taaya inaan qaranka waxba ka dhiman Cabdiraxmaan Ciro shalay toole 12 sano ayuu golaha wakiilada fadhiyay 5 sano la doortay golaha guurtida u kordhisay daacidi kamay hadal 12 sano fadhiyay yiraahdeen madaxweynaha ma aqoonsanin qodobkaasi qodob qabtan maaha qaranka madaxweynaha day aqoonsan waayaan iyagana la aqoonsan maayo ana cayba doogu dartay anagu Gabiley hadaanu nahay iyo galbeed hadaanu nahay waxaan ku iri waxba xagga iyaga ma yaalaan kuma yaalaan xagga iyaga waxba xagga iyaga kuma yaalaan madaxweynaha qaranku wuxuu ku yimid cod 5 madaxweynaha soo maray Soomaaliland mid aan muddada loo kordhin ma jiro 3 madaxweyne waxay ku yimaadeen doorashada one man one vote Muuse Biixi wuxuu ku yimiday doorasho dimuqraadiyeysan waxaana ku yimiday codka shacbiga Soomaaliland waxa bedeli kara oo qura madaxweyne ku yimaada codka iyo doorashada iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliland waa la xajiyay telefishinka qaranka